سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، بإذن الله تبارك وتعالى وحيث كتبنا أيام الأخيرة وألمني ودبيه بشي بركة بضنيدة رمضان. إلهي سبحانه وتعالى وحيث كبرينا إلى إلهي نقال قلوب بحي تغي عمله قالمها تغي إلهي سبحانه وتعالى نقال قلوب إلهي كبرينا انت هذا إلهي وحيث كبرينا إلهي نوبرا كي يكون فايدستنا إلهي نغير سبحانه وتعالى. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وسلامة وسعة رزق. وعين كون ربنا إن شاء الله تعالى سكوبا حكم كتعلق بشهر رمضان بمدينة وأحكامها متعلقة بزكاة الفطر. زكاة الفطر وزكاة واجب تقف مسلم كان marka sababteeduna waxa weeye ka afuritaanka ramadaanka laga afuro sanadii labaad ee hijriyada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaana faral yahay waa sanadkii isla soonka la faral yeelay weeye. zakaatu ru'uus baa loo yaqaanaa bazakaatu al-abdaan bazakaatu fiqaar magacyo tiro badan bay leedahay. xukunkeedu waxa weeye waa waajib, qof kasta oo muslima waa ku waajib هي الدوية لم يبدأ وصاع حبوبة أو الطعام وكسر هي قود كيسة مالك كيسة وحانوك بحنية عندي لازم كنت هاي نفقيته وحسيته. يقول عليه عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لدور إليه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام وحو فرض لنا زكاة الفطر رمضان مركا لقى أفرق صاع تمرة أما صاع هيضة أما أطوكي يحطها لبكي يددكي كي رايكيو إلى المسلمين تكبد بينهم الله عليه الصلاة والسلام. qofku markaa waa inuu naftiisii ka bixiyo, sidoo kale wuxuu ka bixinayaa can kulli man talzamahu nafaqatu cid kastuu nafaqeeyo, haday tahay haweenidii, awlaadii, waalideynkii, hadday yihiin kuwa baahan intaba wuu ka bixinayaa. waxa kaloo iska sunno ah qofkii uu jiifka ahaa in laga bixiyo sida Cuthmaan bin Cafaan radia allahu tacaala canhu waardaahu samayn jiray. badarka la bixinayo وصاع من طعام وصاع طعام وحيابها كيتسدا يلا قوطو صاع هو أربعة أمداد ويه وأفر جر ومن قعدتي سنحيحات هاي سلاح تديلو في ليلة تنميل وشبه ويه وزن كيسة وحوي أي علماء كيلو من كلهم بدلوا الاستيراء في الخلافات لبكم لبكم إلى لبكم تضابط ليقطع ولا جالسية لكن سوف في عنا حوض كواحوية لبكم يشقون أنا لبكي لي يقطع لبكي لي يقطع نعم يحسون
ayaa ah wado fiican sabab badan culimada ku taliya waa 2 kiilo iyo badh inaad iska bixiso qofkii iyo ku waajibaysaa imaamku goormay waajibaysaa imaamu axmed wuxuu leeyahay waqta wujuubiha waa ghuruub shams cadceedu markay dhacdo leylat alfitr habeenkaa la afurayo ramadaanka laga afurayo imaamu abu xaniifa wuxuu leeyahay waqtigii waajibaysa waa tuluucu lfajri min yowm alciid waaga ciidu markuu soo baxo weeye khilaafka yarna waxaa ku jira faa'iidaa ku jirta waqtigaa yara kala horeeya faa'iidaa ku jirta oo qofkii dhalanayay iyo gabadhii la aroosanayay lala guri galay in yaro waqtigaa ku kala jirta oo culimada markaa u dhaxaysa markaa qofkii masalan mawluudka ahaa la dhalay qabla alfajri waaga ka hor yowm alciid cadceeduna ay dhacday waxba lagu yeelanayaa se laguma yeelanayo qowlka koowaad waxa weeye laa tajib waxba lagu yeelan maayo liannahu wulida bacda waqti lwujuub waqtigii waajibnimada waa weydaartay qowlka dambena waxa weeye waa lagu yeelanayaa abu xaniifa u qabo maxaa yeelay waqtigii wujuubka waqti ka horeeya oo habeennimadii la waagu waajibaye ayaa u dhashabay ka dhigan tahay gabadhii lala soo wareegana waa saas oo kale iyo qofkii dhintay goor baa la bixinayaa jumhuur fuqahaa waxay leeyihin waa iska bannaan tahay in tacjiil lagu sameeyo sadaqatu lfidri ciidda ka hor maalin ama 2 cisho ibn cumar radi allahu tacaala canhu baa wuxuu leeyahay amarana rasuulu llahi sal slam rasuulku wuxuu la fari jiray zakaata alfidri an tu'addaa qabla khuruuji innaasi ila asalaa dadku intaanay salaada u bixin in la iska gudo oo maaragta la iska bixiyo naafic wuxuu leeyahay wakaana ibnu cumar yu-addiiha qabla dalika bilyowmi aw yowmayn maalin ama 2 cisho kasii horreysiin jirayba ibnu cumar واسمه خلافان علماء فيما زاد على ذلك وحين لو عشا كسر الرأي واسمه خلافة أبو حنيفة وعليه هو بنات تقديمها على شهر رمضان إمام الشافعي وعليه أي أول الشهر ما له قديم الكرام مالك يسا كعان كاي مذهب كأحمد إمام أحمد يجوز تقديمها يوما أو يومين لما ما قالوا بالغ مريكرا أما مالك بالغ مريكرا صفي عنا واسداوينا هذا فضيلي مالك أما 2 cisho ciidda ka hor inaan xagga daba ramadaanka loo sii bixiyo waxaa kaloo culimadu isku waafaqsan yihiin annahu laa yajuuzu taakhiiruha can yowm alciid maalinta ciidda inaan laga dib marin karin salaada macnaha qofka ka dib mariyana wuu dambaabaya waxaana ku waajibay inuu soo qalleeyo aakhiru cumrigiisa baa la gaadhay inuu qofka qalle lagu leeyo saaran wey wuu ku dambaabaya wuxuu ku dambaabaya salaada haddii la tukado way ka dhacda waaga spire وأنت صلاة كور رسول وقتك زكاة الفطر كوتا جيا مرة تكتب وكان على صدقة من الصدقات لي وحكام بدو زكاة الفطر أما صدقة الفطر ما جبته يا رسول يا فقراء ضد المسلمين تابع رسول يا نبي الوكلاء عليه الصلاة والسلام فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ورسولك عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر ونظيفين بها وسوى قفكي صايم كها وسكان نظيفين عن تلقلشتا هي رفث حمضة هي طعمة للمساكين مساكين ترى ندمها وسوى اليوم ما تقوضبها وسوى دكان كلا وصينا يوم غني كري وحنا سوبحي كري لوصينا يوم عندنا فقط واجب كواحد لوصينا يوم halka uu ku bixinaya waxa weeye waa halkuu joogo halkuu ku bixinaya halkaa uu joogo ku bixinaya iskaga zakaynaya fuqarada muslimiinta ay joogta ayuu wax siinaya allahuma in laga waayo dad fuqaraa dhulkaa mooyaane oo loo baahday markaa meel kale loo xawilo culimada qaarna waxay leeyihin haddii ay dadkiisu ay masaakiinsi yihiin oo maxaan ku dhahay silo iyo uu sadaqa la doono waa uu xawili karaa laakiin sa fiican waxa weeye halkaa uu joogo qofku masaakiinta ku sugan inuu maaragtay كبحيو حناطة وكلام حيلي يكره نقل الزكاة إلى غير البلد الذي وجبت فيه واجب كألقى يكون قطين لقد نقليه يذكر الأمر ولا كلام ذا بينه ولو كنت الحكرة قيمة مثلا والعقد ولا الحكرة علماء اسمه خلافان لما قول بان اسمه خلافان
علماء حقا وحي لا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام، وأنا مذهب الأئمة مالك الشافعي إمام أحمد باب حجته هو حديث رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك من طوم عامين. علماء قال بنيني أنا وجيران ولا قيمها ولا بحكرة قول الإمام أبي حنيفة يبعد السلف وكسر ناظر عمر بن عبد العزيز وكلا الثوري وكلا كسر ناظرنا وجيران. أكثر النظر لبدل ولي شديد لكن صدق عن وحويه سيدا رسولك عليه الصلاة والسلام وبحيان الله بحيو طعام الله بحيو عنطيك الله بحيو ولما قلت الغالب فينه النقض وحاول بدنا أن خالد عنه فينه النقضاء ينفع علماء دول بنيني waxay leeyihiin xaaja maasa baahi adag haddii oo ay soo lacagta midna oo ay uga baahi badan yahay ayuu bixin ujeedadu waa xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam murtida ku sugan weeye وتطهير الصوم مما عسى أن يكون شابه باللغو أو رفث أو نحو ذلك وظاهرين لك ظاهرين يصوم كي وحي وصلها قف ويكا دهين أما ويكا راح صوم اللغو يرفث أيا لك قبل يا صوم وحن كلام سوغن waxaan soomkiina uu kabayaa halkii sunnayaasha ayuu gelaya sunnaha salaada halkuu u galo ayaa soomka u gelaya zakaatulfitr waxaa ku sugan masaakiinta oo laga maaraysiinayo can kulli su'aal yowma alciid yowma alfarxati walbahja dadkii masaakiinta oo maalinta iyada laga maaraysiinayo dadka inay dhex wareegaan iyo dulliga ay leedahay su-aashu iyo baryadu maadaamo dadku faraxsan yihiin maalin ciideed uu jiro waxaa maqaasideeda ka mid ah تدريب المسلم وتعويده على البذل والعطاء في السراء والضراء في الفقر والغنى وتوبر قفك مسلم كالا ساريو ييرون دقا لوغا دغيو wax bixinta gacantiisa inay kala baxdo xilliga uu barwaaqaysan yahay xilliga dhibaatadu jirtaba faqriga iyo qiinada labadaba in wax bixin karo iyaduna waa sir ku jirta weeye waxaa ku jiro kala maqaasida ka mid ah shukru lmunci caza wajalla calaa nicamihi wa fadli can طariiq اlinfaaq walictaaq ilaaha muncimka ay nicmooyinka tirada badan la bixiyey subxaanahu watacaala iyadoo looga mahad celinayo nicamkaa tirada badan iyo fadligaa ilaahay subxaanahu watacaala can طariiq اlinfaaq walcataa'i lacagta wax bixinta aad bixinayso ayaad ilaahay ugu mahad celinaysaa subxaanahu watacaala xikmado tiro badan baa ku sugan laakiin kuwaasaa ka mid ah ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala khayrkiina na waafajiyo shirta allah ina waafajiyo dooradana allah inoo soo doorada nabadkii roob axdigii iimaanka ilaahay noo siiyay ceebteena ceebta muslimiinta ba allah asduro dembigeena iyo dembiga waalidintaba allah dhaafo intii xaqii xusuusiya kormayna ula dhimantay allah u naxariiso xilana allah inoo daba naxariiso waxaanu haynana allah inoo bara dadka iyo dunyada iyo diinta iyo dowladdaba allah inoo bara waxaa maqanee wanaagsan ee naga maqan ilaahay subxaana watacaala inoo soo xerogeliyo balaayooyinka wareegaya caanumada leh ee allaalaha leh جل الفضل له إلهي سبحانه وتعالى خلقه كي يعول له إلهي سبحانه وتعالى هنا قدر الله ضد المسلمين تعيد جوا في سنة إلهي سبحانه وتعالى كنت حرام الله قدر الله إلهي وحمد سنة ونعمه بك ونسي إلهي سبحانه وتعالى كم هذا الذي الله نبيه كل إلهي وسيادين الله نبيه كل صلاة وتقدر الله الله نبيه إلهي وحمد سنة سبحانه وتعالى إنه حرام الله إلهي سبحانه وتعالى من إلهي العليم وإلهي نسأل الطبيعي intii ku geeriyootay ilaahay shuhada u qaato intuu jirta ilaahay caafimaadii bidhaafka kuusugu daro inta aanu ku dhicina ilaahay subxaana watacaala uu ka dabaalo ilaahay waxaa weydiisanaa ciiddeeda iyagoo nabad qabnaa caafimaad qabnaa qashqashiyo barwaaqo ku sugan khayreed iyo riyaadadii sanada ku sugan ilaahay subxaana watacaala inuu na gaarsiiyo ilaahay ka baryana ilaahay ka baryana waxaa leedahay allahuma aacid calayna ramadaana cawaaman cadiida وازمنة مديدة ونحن في صحة وسلامة وسعة يا رب العالمين. نبي صلى الله عليه وسلم